يقولون يروح الله بعنان after 25 years احنا مرينا إني ترى حاد فري مركب وقتي وأنا قامني هاي سان فيلايو فهمت مدحوينها هي وقرالة مدحوينها أحمد مدور هي اللي سوق من دونا هول بدن بانوتال إلهي نوبل ما أنت برلمان كي بالفريا بريتن الدودية في لابنيسو فأنت وحنا ومرتان إنه قابل عن إلهي وحنا وفضله سيدي ذيك إلهي وفضله السلام عليكم سبا ونكسن Honourable First Deputy Speaker Jelani Nouri Bika, Your Excellency Sheikh Ahmed Madovi Islam, Vice President of Puntland. Speaking last is a great honour, but is also a great challenge because everybody has already said everything. I want to do three things, if I can, in this speech. One, to say many thank yous. Second, to say many congratulations. And third, to be rude and ask for more. waxaan halkan uga soo gudbinayaa salaan iyo hambalyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ana wakiilka madaxweynaha iyo dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo dhammaan ambaashadoorada kale ee nagala soo qayb galay iyo martisharafta kale ee nagala soo qayb galay xafladda calaamasaarka maamulka Jubbaland waxaa kaloo u wada salaanteeda u soo gudbinayaa ergada qiimaha iyo qaadaha leh ee kale nagala soo qayb gashay sida Ra'iisul Wasaare Professor Ali Maxamed Geedi aan intaas kaga gudbo waxaan rabaa inaan idiin sheego Jubbaland ama gobollada Jubbooyinku waxay ahaayeen meelaha Soomaaliya dhibaatada ugu badan ay soo martay sababta ugu wacan waxay ahayd meelaha waxay ahayd resource-ka lagu tuumayay Soomaalidana waxa la isugu laayay ama dhibaatada badan uga dhacday waxay ahayd dagaal dhaqaale ku saabsan ma jiro Soomaalidu ma aha dad jinsiyad ku kala bedelan ma aha dad wax kale iyo ku kala maqan waa dad luqadda diinta dhaqanka iyo dhalashada midna aan ku kala tagsanayn